waxaa magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirashiid aadan maxamuud oo waxaan ahay musharax u taagan kursiga xildhibaannimo ee lafey. Halkaani waxaan rabaa in aan ka salaama dadka shacabka ku nool degmo doorashada lafey. Waxaan walaalahay ka codsanayaa reer lafey in ay i doortaan ayagoo igu dooranaya waxqabadka iyo barnaamijka aan u wada anigoo ah qof waayo arag ah, adduunyada kale ka soo shaqeeyey, dhulkiina kala yaqaana, waayo aragna wa ah, xiriiro badanna adduunka la leh. Waxaan rabaa inay fursaddan ka faa'iidaystaan walaalahay. Aniga waxaan u ballan qaadayaa haddii i doortaan in aan u adeegi doono si daacadnimo ah, xoolahoodana aanan ka lusan doonin. Xiriirada aan dibadda la leeyahayna aan aniga oo ka faa'iidaysanaya deeq waxbarasho iyo maxaa la yidhahdaa mucaawanooyin iyo wax kasta oo maaragtay kor u soo qaadaya nolosha reer lafey aan ka shaqayn doono. Marka ayaamaha ka dhiman doorashadii haddana waan soo socdaa. Waxaan walaalahay ka codsanayaa inay i doortaan oo ayagoonan eegaynin reer hebel iyo jufafelel iyo line up iyo waxba aanan fiirinaynin. maxaa yeelay MB-gaada ayaa ah qofka ugu muhiimsan ee codkaada ku hadlaya ee dowladda countiga wax kaaga soo qaadi kara wixii xaq aad u lahayd, dowladda nationalka wax kaaga soo qaadi kara. waxaa kaloon u sheegayaa gabanayaal 4 gaaraya ayaa tartamaya. ikhtiyaar aad u leedihiin kaad rabtiin aad dooran kartiin, laakiin waxaa ugu xataa haddii soo galo kan aad u malaysiin inuu ugu xun yahay, laakiin MB wanaagsan oo idiin danqanaya oo diir naxa leh oo maaragtay waayo arag sida aniga aan isku tuhmaya haddaad dooratiin in uu wax inkiiga soo qaadi kara. Aniga waxaan idin ballan qaadayaa in governor kastoo soo gala miduu ahaadaba aan la xisaabtami doono oo wixii xaqiina uu inkiiga soo dhicin doono. Dowladda dhexena wixii xaq aad u leedihiin inkiiga soo dhicin doono. Adinkana dadkii in isu keeni doonaan walaaltimadii reer lafey aan soo celin doono oo beele iyo jifidan loo kala qaybsan yahay aan ummad mid ah idinka dhigi doono insha allahu. Xagga amniga, xagga dadka jiiraankana leeyahay oo dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca kaleba inaan dadkaasi aan nabad kula noolaan doono hadduu ilaahay yidhaaho. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.